wiil baa ugu horeeya magaciisu Cabdulqani waxa uu leeyahay sheekh gabadh ayaanu ku heshiinay inaan isguursano meherkeedina waxay ku go'aansatay inuu noqdo kitaabka quraanka oo ay rabto sidii ay u baran lahayd aniguna quraanka ma xifdisani in yar ayaan ka aqaanaa marka wuxuu leeyahay sidee ayuu noqonayaa quraankaasi meher u noqonayaa oo aniguna xaqeedii aan u gudi karaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogolaado su-aasha ku xigtaa waxa uu leeyahay waxa aynu ognahay in qabriga masaajid aan laga dhisi karin dhinaca qabrigana aan loo tukan karin marka wuxuu leeyahay haddana waxaan arkay masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam in qabrigii uu ku dhex jiro marka arrinkaas isagoo faahfaahsan sidee ayuu noqonayaa nin kale oo ganacsada ah baa su-aasha ku xigta soo qoray waxa uu leeyahay sheekh dukaan ayaan haystaa marka bisha ramadaan dadka qaarkood baa waxay iga qaataan waxyaabaha fudud sharaab keeg roodhi waxyaabo noocaas mana kala garan karo qofkan inuu sooman yahay iyo inaanu soomanayn marka miyaan ka iibin karaa mise ma iibin karo su-aasha ugu dambaysa waxa uu leeyahay waxaan haystaa meherad maalin walbana masaakiinta dawarsata waxaan u qoondeeyaa lacag gaadhaysa ilaa 20,000 oo shilin aan 500 ugu qaybiyo oo aan siiyo marka wuxuu leeyahay inaan 540 siiyo iyo inaan 4 miskiin oo mutaystay min 10,000 oo burburan u dhiibo keebaa labadaas qiimo badan oo fadli badan buu leeyahay sheekhana gabadha quraanka kariimka meher waa looga dhigi karaa baritaankiisa waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam gabadh buu nin ugu guuriyey inuu qur'aanka baro inkastoo uu ku uhi usawijukahaa bimaa macaka min alqur'aan waxaan kugu guuriyey intaad qur'aanka taqaana buu ninkaa ku yidhi marka hadduu qofku yaqaano isagaa baraya haddii aanu aqoonina dee mucallimadii bari lahayd buu qabanayaa iyadoo tan iska diidda mooyaane wuxuu leeyahay heblaayadan ii bar qur-aanka ilaa ardaydeenaba mucallimiin baynu u geynaaye intaasaa ku filan marka waa sadaaqun manfaca waa manfaca fi sadaaq waa dheef la xidhiidha xagga meherka taasay ku ansaxaysa qabriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam qarniyo dhexe ayaa lagu soo dhoweeyey masaajidka wakhtigii hore dhinaca bariguu ka xigay markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam ha yeeshee iminka culimmadu markay ka jawaabayaan deegaanka ku ah goobta waxa ay yidhaahdaan qabrigu wuu ka baxsan yahay oo qaybta masaajidka midigta ka xigta dhinacaasay ka xigta laakiin qaybta kale wuu ka go-an yahay kuma dhex jiro sida uu maaragtay qofku markuu siyaaranayay qabriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaad ag marayso eed mimbarkiisa iyo soo dhaafto qiblada halku ka tukiya imaamku iyo qabrigu waa gooni weeye masaajidkuna wuu ka dambeeyaa gidaarna wuu ku kala xidhan yahay waxaa jira iibka aad rabadaan alaabta iibinayso qofkaad ka iibinayso haddaanu ahayn qof aad taqaano oo si adyad iyo xadguduba u afuraya ramadaan oo agtaada ku cunaya haddaanu ahayn ee uu yahay qof aanad garanaynin inuu cudurdaar leeyahay iyo in kale waad ka iibin kartaa laakiin qofka hebel oo adyad u cunaya aad garanayso oo faadira unbaad iska daynaysa sadaqada markaad bixinayso sadaqada qofka inay wax u tartaa waa muhiim markaa masaakiinta kolkaad wax siinayso wax u yaraan koob shaaha u goyn kara sii inkastoo wax walood bixiso maalihiba uu nebigu uhi laa taxqiranna min almacruufi shay-a wixii aad bixinaysa ha yaraysan inuu yidhi walow firsani shaatin neefka adhiga raafkiisan horena waa tilmaamay nebigu haddana wax u goyn karo koob shaaha iyo 2,000 iyo saas waad u kordhin doonta markaa dee wax baaba-ana ha ka dhigin in koobanna ha ku ururinine halkaad uga qaybin lahayd 40 20 oo kale sii ama 15 oo kale si ay wax ugu filaatay wax ugu goyso وهذا ما أقوله وأستغفر الله السلام عليكم